waxay qaadiyaalku xaq u leeyihiin kuwa kufsiga sameeya ee gabdhaha kufsanaya inta soo qabtaan oo dilaan inay deldelaan an yuqataluu oo yusallabu waa maxay waa mid inta la dilo in geed la suro oon la aasin oo qof kastoo weydiiyo la yidhaahdo waa midkii gabadha kufsaday saas in la yidhaahdo weeye xukunka saxdaa sidaana alla u jideeyey xugun cadliya weeye waa xugun naxariis badan ilaah khabiir ah ood yaqaano danteennaa jideeyey ummadda diinkaas haysataa ma waxay u baahan tahay qaanuun banu aadan berri waxa dhacaya aan ogeyn ay dejiyeen miyay u baahan yihiin maanta miyay tahay in laga fekero la yidhaahdo qaanuun kufsiga looga hortegaya hala sameeyo miyay u baahan tahay ummadaanu subxaan allah ilaahu qalbiga hana tirin war dadka haddaan qayr alla ugu talagelin waxaa laga indhasaadaa diintooda waxaa laga indhasaadaa badbaadadii ay badbaadi lahaayeen markaasaa shaydaanku meel kale uga yeeraa ilaah weynaa subxaanahu wa tacaala ee addoommadan abuurtay gabadha abuurtay wiilka abuurtay dhammaan addoonka abuurtay waxaa hadda ka hor dhacay og waxaa hadda dhacaya og waxaa soo socda og allahaas xukunkuu dejiyey xukunkaasa ummadda dan u ah ayadaa amnigu ku jiraa ayaduu ku cirib go-ayaa kufsigu ayaduu dhaqan xumadu ku cirib go-ayaa laakiin banu aadan waxa berri dhici doona aan ogeyn wixii hadda dhacayana in badan aan ogeyn xaq uma laha inuu addoommada xugun u dejiyo war ma ilaahay bay xukunka shirka ku leeyihiin am lahum shurakaau sharacu lah min addiin maa lam ya'dan bihi llah muwaadnaan dareen lahayn walaalayaal muslima miyaadnaan ahayn sow rabbi qowlkiisa maqli maydaan war dadka sharci dejinaya ma ilaah bay shirka la yihiin oo khaaliq ah wax abuurtay miyay shirka la yihiin subxaan allah